ilmaha aad caloosha ku sido ama uurjiifta adiga ay kugu tiirsan yihiin si ay u kobcaan oo ay kaga helaan wax kasta oo ay u baahan yihiin. Sidaas daraadeed waa muhiim intaad uurka leedahay inaad cunto cuntooyin caafimaad leh oo sare u qaada caafimaadkaaga iyo tan uurjiifkaba. Waxaan doonayaa in aan wax idinkaga sheego qaar ka mid ah cuntooyinka halista ah aysan cuni karin hooyada uurka leh kuwaas oo dhibaateyn kara badqabka hooyada iyo uurjiifkaba. Cuntooyinka aysan cuni karin hooyada uurka leh waxaa ka mid ah hilibka aan sida wacan loo bisleen, waxay keenaan cudurro halis ku ah hooyada iyo uurjiifkaba sida cudurka dhiigga dhiciska ama toxoplasmosis iyo bakteeriya kale ee loo yaqaan salmonella kuwaas oo awood u leh inay dilaan ilmaha uurka ku jira ama uurjiifta. Sidoo kale hooyada uurka leh waa inay ka fogaataa kalluumada leh ama ay ku badan yihiin mercuryga sida king mackerel, marlin, orange ravelli, shark, tilefish. Guud ahaan kalluumada aan soo magacaabay waxay leeyihiin mercury badan oo waxay halis ugu jiraan uurjiifka oo waxay dhaawacaan nidaamka dareemayaasha jirkooda ama nervous systemkooda. Hooyada uurka leh waa muhiim inay cunto kalluunka oo waxay ka helaysaa nafaqada ay u baahan yihiin uurjiifka sida borotiinka, balse waa inay cuntaa kuwa safe-ka ah oo aan dhibaato u geysanaynin uurjiifka sida salmonka, catfishka, clams, cod, carp, scallop, tilapias. Guud ahaantoodu waa kuwa aan waxyeelo u geysanaynin uurjiifka. Hooyada uurka leh waa inay ka fogaataa cananaaska maxaa yeelay waxaa ku jira enzyme loo yaqaan promalin kaasoo burburiya borotiinada. Sidoo kale waxay keenaan dhiigbax oo waxa isku yimaada murqaha minka. Ugu dambeyn uurjiifka way soo dhacaan iyagoo aan waqtigooda la gaarin. Waa in aad ka fogaataa caanaha aan la karkarin ama sida wacan loo karkarin. Waxaa laga qaadaa bakteeriya loo yaqaan listeria taasoo awood u leh inay disho ilmaha caloosha ku jira ama uurjiifka. Sidoo kale hooyada uurka leh waa inay ka fogaataa babayga gaar ahaan kuwa aan bislaanin. Waxay keenaan murqaha minka inay si adag isugu imaadaan isla markaasna uurjiifka dibadda u soo tuura iyagoo aan waqtigooda la gaarin. Baadka ama ukunta sida wacan loo bisleen waxay keenaan cudurro halis ku ah hooyada iyo uurjiifkaba sida bakteeriya loo yaqaan salmonella taasoo si sahlan ku disha uurjiifta. Sidoo kale hooyada uurka leh waa inay ka fogaataa cuntooyinka ay ku badan yihiin sokorta iyo dufuntaba. Waxa kale oo wanaagsan inaad ka fogaatid cabitaanada energy drinkiga. Sidoo kale waa inaad ka fogaataa shaaha, kafeega. Waxay leeyihiin maadada loo yaqaan caffeine-ka taasoo si sahlan u dhaawacda uurjiifta. Sidoo kale hooyada uurka leh uma wanaagsano inay cunto cuntooyinka ay ku badan yihiin vitamin A-ga sida beerka iyo saliidda kalluunka. Hooyada uurka leh waa inay ka fogaataa cunooyinka gasacaysan ama qudaarta ciidda leh oo aan sida wacan loo meerin.